السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو غزالة ayaa markii uu arkay in dadweynaha Sacuudiga ciriiri ku yahay waqtiga ay wax karsan lahaayeen maadaama inta badan mashquul ku yihiin shaqo isla markaana ay danaynayaan cunto diyaarsan ayaa ka fikiray sidii ugu faa'iideysan lahaa fursadaasi wuxuuna ku dhaqaaqay sameynta maqaayad lagu kariyo cuntada fudud sida hilibka digaaga asigoo qandaraas la galay shirkadda Borosto ilaa waliba Abu Ghazala wuxuu waayay macaamiil badan oo maqaayadiisa wax ka cunta waayo dadweynaha Sacuudiga ma garanayaan hilibka digaaga ee Borostaha sanadkii oo dhan waxa maqaayad wax ka cuni jiray 100 qof dad aan kor u dhaafaynin Abu Ghazala ayaa gacantiisa cuntada ku karinayay oona macaamiisha u geynayay isla markaana lacagta ka qaadayay markii maqaayadda xogaa kor u soo kacday ayuu Abu Ghazala xanuunsaday waxaana ku dhacay cudurka kansarka kadibna waa uu geeriyooday laakiin riyadiisii ma dhimanin inkastoo uu dhintay ayadoo deyn badan ugu leeyahay xaaladaas ayadoo ku jirta maqaayadda ayaa Ihsaan Abu Ghazala wuxuu ka soo qalin jibiyay jaamacadda gaar ahaan kulliyadda batroolka iyo macdanta wuxuuna ku qasbanaaday in uu qorshihiisa mustaqbalka wax ka bedelo si uu u xaqiijiyo riyadii iyo hamigii aabihii isla markaana uu awoodo walaalkii yar inuu waxbarashada dhamaystirto waxaa lagu leeyahay maqaayadda deymo fara badan sidaas daraadeed bangigu wuxuu ikhtiyaar geliyay labadii wiil in ay xirnaato maqaayadda iyo in ay deynta ku bixiyaan 2 sano gudaheed waxayna aqbaleen labadii wiil in ay furaan maqaayadda ayna deynta iska bixiyaan labadooda ayaa maqaayadda shaqaale ka noqday oo ayaga ayaa cuntada karinayay isla markaana u geynayay macaamiisha sidoo kale waxay gacantooda ku nadiifinayeen miisaska kuraasta iyo maacuunta maqaayadda waxay kaloo aad ugu dadaaleen guud ahaan nadaafadda maqaayadda taasoo u suuragelisay inay helaan macaamiil badan maadaama aqoon fiican u lahayn maamulidda maqaayadda ayaa Ihsaan Abu Ghazala waxbarasho dhanka maqaayadaha u doontay dibadda gaar ahaan dalalka galbeedka muddo kadibna wuxuu ku soo laabtay dalkiisa Sacuudi Carabiya asigoo xambaarsan cilmi iyo fikrad dhanka maqaayadaha ah kadibna waxa uu suura gashay inuu wax badan kaga duwanaado maqaayadaha kale ee ku yaal gudaha dalkooda Sacuudi Carabiya waxayna ka maarmeen waxyaabaha cuntada lagu macaaneeyo ee ay ka soo iibsan jireen shirkadaha dibadda waxa kaloo meesha ka saareen heshiisyadii ay la galeen shirkadda Borosto kadib markii ay iska bixiyeen deymihii lagu lahaa dhan kale maqaayadda ayaa samaysatay waxyaabaha cuntada lagu macaaneeyo waxayna tijaabo geliyeen waxaas isku qasan ee cuntada lagu macaaneeyo muddo 3 sano ah kadib maqaayadda waxay heshay macaamiil badan guul muglana way ay gaartay ayadoona ka badbaaday burbur kadibna waxay bilowday inay isku fidiso gudaha dalka Sacuudi Carabiya ayadoo magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama kaliya ka furtay 7 farac mar uu ka hadlay Raami Abu Ghazala qaabka ay guush ku gaareen ayuu dhahay waxa macaamiisha ka iibinaa cunto macaan oo aad u heer sareysa annagoo qiimihii aan maqaayadda ku bilownay aan wax badan ka bedelin